runtii guurkeenu meelo fiican buu leeyahay, meelo khaldana wuu leeyahay. waxaa meelaha fiican ah oo diinteenu qabto ee dhaqankeenunu qabo in gabadha lasoo doono, in wiilku soo xaadiriyo, inuu yimaado asaga wax raba moogta. saasay ahaan jirti. isagaa imaanaya, dadkiisuu keensanayaa, mas-uuliyad buu qaadahayaa, xooluu bixinayaa, mas-uuliyad buu la soo wareegayaa. keligiis ma ahane asaga ciddiisa la soo wareegaysa. saasay ahaan jirti. laakiin maxaa ceeb ah? waxaa ceeb ahaa in xoogaa lagu kululeeyo wiilka oo waxyaalo badan oo qaali ah lagu xiro, oo xoolo badan lagu xiray ahaan jirti. barigii hore xoolaa intaasoo neef, intaasoo geela, intaasoo farda waxbaa la sheegi jiray. haddana waxaa maqlaya intaasoo dahaba waxyaala badan baa iska jira, intaasoo garaama ah. heer waxaa la maray gabdho yidhaahaan maaragtay maxaan ku idhaahaa, waxaan rabaa keliya in la maqlaan rabaa keliya, waxba ha bixinin, kaa qaadan mahayo, laakiin gabdhaha maqashii. hiblaayo waxaa lagu nikaaxshay 100 ama 200 oo garaamo dahabo. waxaad maxay yihiin? maqashii leh bas keliya adiga. waa cajiib moogta. laakiin waxaa weeye gabdhuhu maaragtay runtii waxaa weeyaan waa khayr badan yihiin, waana dadaal badan yihiin, laakiin waa inay fahmaan mar haddii kelimadu dhacdo waa dhacday. baabka guurka iyo nikaaxa cayaar ma gasho, cayaarna ma laha. cayaartiisa waa dhaba, cayaartiisa baaba dhab ah. gabadha isii waa ku siiye, waa kuu nikaaxshay, anna waa ka aqbale, cayaar bay laga yeeli maayo, waa tagtay. meherkaagu meeqa weeye? meherkaygu waa 200 maxaan ku rahaa oo maalan sheeg garaamo dahaba. ma aqbasho? waan aqbale, cayaar bay laga yeeli maayo. marka runtii waxaan ugu waajibay marka inaan yani guurka aan maxaan ku rahaa dhankiisa fiican iyo dhaqankeena fiican inaan soo nooyana fiican aan ku dadaalno. dhaqanka maaragtay yani guurka la adkeeyo, gabadho lala baxo, masaafada waxa hadda uu sheegayay maaragtay walaalkii uu sheegay, waxaasoo dhan in laga baxaa la rabaa. gabar lama xadi karo, xoolo ma aha, lacag ma aha, mobile la furanayo jeebka laga siibayo ma aha. dad bani aadam weyn, qof baa dhalay, dad baa dhalay, meel bay kasoo jeedaa, sharaf bay leedahay. maaragtay iskaan, mas-uuliyadda qaad, raganimada la imow, waxaa tahay sheeg, waxaa awoodid sheeg, waxaadan awoodidna sheeg. laakiin waa dhuudhuumanaya, gabadhan xadahaya lagaa yeelima. diintu ma ogola, mas-uuliyadduna ma ogola. gabdhuhuna inay aqbalaan ma aha in la xado, oo inta uu u sheekeeyo waxoogaa beenbeena u sheego inuu hadhow maaragtay maxaan ku raha uu ku maaragtay ula xado, lama ogola. markaan leeyahay gabadhu waa in loo yimaado oo dadka la weydiisto, maxaa loola jeedaa? waxaa loola jeedaa waxa weeyaan waxaana mas-uuliyad wey. horta adugu maxaa tahay, maxaa qaadi karta, maxaa gashaa, maxaa goysaa, yaa kaa dambeeya. gabadha mas-uuliyaddeeda yaa qaadahaya. marka dad maarata dhan baa qaadaya, dad baa laga soo wareejinayaa, dad baa loo wareejinayaa. marka guurku runtii mas-uuliyaddaas weeyaan, waana shay qaali ah. nabigana sala allahu alayhi wasalam in la isguursado ayuuna amray, in la fududeeyo ayuu maaragtay na amray. in maaragtay wuxuu noo sheegay in gabdhaha kuwa meherkoodu, kuwa meherka yar inay u barako badan yihiin buu noo sheegay nabiga sala allahu alayhi wasalam. tan kale waxaa weeye axkaamta guurka iyo isbarashadana ayadana waa in la ilaaliyaa. guurka ka hor aan isbaranno, aan meelaha isla wareegno, waxaa noocaas oo kale ah wax ka jiraa ma jiraan. waxaan waa iska nasiib weeye. midaa isbarateen oo intaas istaqaaneen oo isku lahaydeen oo aas lahayd maxaan ku rahaa wuu fiican yahay, aas lahayd way fiican tahay, iyo hadhow guriga la tago, guriga baabkiisu markii la tagaa la arkaa. inta ka horeysa waa sheeko wey. annagaa soo marna weydiiya. waxaanu iska nasiib weeye. waxaana iska nasiib tii ilaahay kuu barakeeyo iyo wiilkii ilaahay kuu barakeeyo weeye. way isbaranayoo macquul bu ila muuqday, isma baran waxaasi maba ahaba. waxaan si carabta ay tiraa maaragtay guurku waa nasiib bay yidhaahaan. guurku waxa weeye wax ilaah kuu qoray subxaana watacaala weeye. waa la dadaali karaa, laakiin markii la isbarto, barashada markii guurka guriga la tago bay noqonaysaa. si kasta oo maaragtay la isku babarto meelahaas maxaan ku waleysna mushaaxo oo qofku waa isxaragaynaya, waa isqarinaya, ma oqon kartid.
wiilka lama aqoon karo gabadhana lama aqoon karo ilaa markii guriga la tago weeyaan. marka halaasha lagu dadaalo guurkana hala fududeeyo insha Allah taala. waxaan aad iyo aad u taageersanahay mashruucan asaga ah in guurka la fududeeyo oo maaragtay waxa ku dhagan oo dhibaatada laga qaado. hadda waxa barnaamij la yiraaho in guurka la adkeeyo socota, in guurka la qaaliyeeyo socota, in guurka dib loo dhigo ayaa maxaan ku waraha socota oo gaaladu wadaan. hay-adaha ka shaqeynaya in guurka la daahiyo ka shaqeynayaanba, waxay ka shaqeynayaan in lala dagaalamo guurka, waxay ka shaqeynayaan qaangaarku waa imisa 18 sano weeye kuleeyihiin. goormay ahayd gabar maaragtay 10 sano ku qaangaartay ama kadib qaangaartay oo intaasoo sano joogtay iyo wiilkaas oo kale ah ayaa waxaa leeyahay weli qaangaar maaha oo gar iyo gafur buu leeyahay. maxay tahay waxaa sheegaysaa weli qaangaar maaha kuleeyihiin. midna kiina weeye keena maaha, waxa qaangaarka aan ahayn kiina weeye gabadhiina weeye. annaga dadkeena ayagoo yar yar ay qaangaaraan oo caqli yeeshaan oo mas-uuliyad qaadaan oo ay wax qaban karaan oo guri asaasi karaan. baan runtii anu aaminsan. marka runtii barnaamijkan waa taageersanahay, waana barnaamij khayri ah, waa sadaqa jaariya weeye. wiil fiican insha Allah taala iyo gabar fiican guri fiican ayaa la asaasayaa haddii la doonayo in bulshada la dhiso, qoysaska laga soo dhiso, guurka hala badiyo, kuwa dhisanna ha la hagaajiyo. guryo samo Allah na siiyo. jazakumullahu khairan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.